لكن إن سياسيين اسكو بحثتي وحصل مع المدى كبحسن كهوسيو يقول علادينيو واحد dadka qaar ay fahmi laayeen oo ay wax istaakilin laga yaabo in qaar kood sida dadka aaminsan inaan reer Muqdisho ah oo Muqdisho kiimaan goorma ay noqoteen caasimada Soomaaliya wax laga faaran noqoto Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh qubana maanta waxaan dul istaagayaa oo inta ka socota Minnesota waa wiilkii naasi warsamaha ee Bill Cor anaga digniinta ka siiyay shuruudaha ku xiray qaadan waayay ee maanta oo inta sanjaalaha iyo diif kula socdo la soo istaagay asaga kaligi maay asaga beeshiisa hawiyow lama meyd baa idin wada hal meyd ma maanta laba idin wada wiilka Cabdiqaadir Boosa ee dhowrka sano qabiil laandheer ay waan jiray maanta dabadiisa ay tusaya dabadiisa maanta tusaya waa dul istaagaya sidoo kale waxaan ku dul istaagi doonaa dadkii waalwaalaa ee la dagaalameynay aqal xmadooda waa dul istaagi doonaa dal ayuune waxaan ka marnay ayaan dul istaagi doonaa xukuumadii dhameeyay Soomaaliya ka jidhay ee uu kaale ahayd waxa sadiiqe oo ku mashquulsan ninkii isbeddelka laga sugayay wiil yara Facebook-giis la yiraahdo cali kulligood suuqa ku mashquulsan cali yara aan xirna ayaan dul istaagi doonaa aan ku hormaro Minnesota ku hormaray wiil yara waxaan doonayaa inaan hawiyaha habar gidire baa wuxuu yiri waxaan doonayaa inaan noqdo xildhibaan wiilku wuxuu ahaa Facebooker anigu dadka iskama dulmiyo hawiye daroodo walaala oo Soomaaliya munaafiq maahi hadalka yooraha waa cadaystaa wiilkaasi shan sano maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha halka waata qoraalkaas ma eegsan tagneed Farmaajo cadaaro maalintu soo sharaxay baa iri laba mid soo gal labo adaa door labaay hadalkaygu dawaa waa daawateen idinku celin laba mid soo gal wiilka inuu tanaasulo oo iska taga meeshaas saxla keenay waxba inuu sakeeyay meesha iyo inuu reerku shan sano caayay ayagii waxaad ka rabaay inuu kabaha afka ku soo qaado farmaajo daarood kale la geliyo boqorka ayuubana agaha u dugdugo wiilka hadalkayga ilaahay ma deeqsin Cabdiqaadir Boosa dhabar ku watay kor iyo hoos waa ugu sheeg waxaan nik adaa garanay wiilkii ma garanayo inta ninka ahay waa garanaysa ayuubana nik kaftan maahi munaafiq maahi hadalka waa cadaysta hadalka cadaysanayana waxaan ku hadlaa anigu maaha xiniyaha la yaakiliyo kuma hadlo xiniyaha garbahayga taagan baan ku hadlaa sida xiniyuhu maaha kuwa adeeg ka laalaada maaha ee waa kuwa garbahayga taagan Minnesota waa garanaysa ciiday tahay waa meel D5 ay leedahay waxaan ku yiri wiilka laba af mid yake inuu tanaasulo oo laga baxo iyadoo kama afka soo qaado ka dhagaaday Cabdiqaadir maanta meydkii buu jiidanaya wiilkii oohin iyo duuf iyo masaajidada kuwii joogay wax garadkoodii xildhibaanadoodii dhaqaatiirtoodii wixii dhan waxay dheen xisbigan nin la yiraahdo Markin baa wuxuu yiri dawlad baa gaalada Soomaaliya dawlad waxay dheen kursi ma qaban kadib kursi maaha forever ma bay sharaxi kadib Cabdiqaadir inta ficilhi naasiyay asagoo uu ku gubanayo buu maanta hal horta wiilka hadalkiisi waa wiilkii shalay u digayay oo la warka joogay hadalkiisi waa kan xisbiga endorsement awraasi kan oo li mamnuuca forever waxaan dadkeena qaboway waxa tartankan ugu jira in qof kasta oo Soomaaliya aan codkiisa ku hadlo difaaca sharaftiisa iyo karaamadiisa laakiin in siyaasiyiin isku baaxistay wax Soomaalnimada ka baxsan ka hooseeyo iguna colaadinayo wax dadka qaar ay fahmi laayeen oo ay wax istaakilin laga yaabo in qaar kood sida dadka aaminsan inaan reer Muqdisho ah oo Muqdisho kiimaan hawiye meedka waa saweeyay ana idii aasay meedkan ana idii aasay waxba is dhibinina waxa ku aastaa in nafa ku aastaa midna ma haystid ana idii aasay meedkana idii wada marka kan ma hakliye meedku kan ma hakliye meedkana idii wada Cabdiqaadir Booski la dheerana hawiye dhuro ku hayn jiray asagoo maanta calaalaya oo leh ilaahan soo bixi mays waa wiilkii laba asbuuc kor ilaha hadduu soo bixi waayo ana hawiyaha waxaan balan qaadaya ilaahan umarnay soo bixin كيشادي عطوا كسو قادو عدو قادر waxaan moodayaa inay igu kaftamaysid xiniyaha leedahay xiniyaha wiye maanta maxaa ka soo yeeray mareexaanow ogaadeenaw inaan arin mareexaan iyo ogaadeen mawcalla
ma urur Soomaaliya ilaan dalada waxalada ba waxa la yiraahdo dadka aabayaashood garan waayay dadka garan waayay sinjigooda garan waayay waxa urur Soomaaliya jira urur Soomaali ay ku biiraan mareexaan iyo baalki iyo ogaadeen ma dalada waxalada ku dana meesha dadka mareexaan miis ahayn hadii la ku rooyahay curadki daarood miis daarood ahay ogaadeen miis ahayn wiilka malaxo hadii la ku rooyahay in absama miis ahayn warxiiniyaha igu faanaysay ee ashada san igu xiisay ma waxaan ahay bal horta codkiisa ila dhageysta adinka ilhaan cumar iyo jamhuuriga in ilhaan ay dhulku ku dhacdaan rabaa oo ninka jamhuuriga ilaa uu Israa'iiliyaan noqdo loo odayaal rabaa horta markaas ayay ciidan reer tolkeena ogaan doonaan waxa ay Soomaalinimadu tahay talaabadaas waxa qaaday hawiye kaliya maaha ogaadeen iyo mareexaan iyo daarood intiisa kale ileen dadka sheekadan wato waa dani teamkiisa waa Soomaali ilaa Soomaali waxaan rabaa codadkiina jamhuuriga waxa la Mareykanka isha wax la iska geliyay kan isha jamhuuriga ka geliya horta wuu haduu soo jilicsan yahay Soomaali ka Soomaalina ay gash ila diina عند الله islam raawiyo meed kala adiga jiit hada qabiil niman ahayn hayb kuma faane ruux ma ka siiya wuxuu ma wareereen ma maskixiyan buu waaleeyay waa wiilkii lahaa ilhaan cumar ana hawiye haday sanadar ku soo laabato maanta muxuu taagay ogaadeen iyo mareexaano isha fartaga ilhaan cumar war ogaadeen iyo mareexaani ayaga hartiya ayaga daarooda ayaga dhiifayfa ayaga isle ilhaan ayaga dhalay neef iyo neef kala jirin war maxaa kugu dhacay war kugu filan way urur Soomaali war tiimkii waxa leeyahay aruursan hawiye halkaas qabiil buu ahaa urur Soomaaliya iyo wixii aruurin jireen mid ku filan way war marka hayb yeelataan ama isqatil horta waxaan aad uga xumahay inaanu intaas oo qabiil ku xifaaltamayna walahi aad uga xumaa aan anigu soo bedelo reerkayga taagan war daarood baan ahay halka taagan bayur dhalay isbedelin baan war anigii ba hadda ma anigii ba gurmad iga soo doonat ma anigii ba gurmad iga soo doonat ogaadeen maraa iga soo doonat laangaab dhalay ehlun naara oo munaafaqa waliba oo aadiyaal ku rooyaan laangaabad waas dhamaane laangaab jabay maanta ku diiwaan gali meedka qaata hawi meedka qaata waxa ku soo laabanaya curigeelkaaga naasir dhageyso dambi ay igalaad gelin ana halka ku dhigay markii cid uu wareystay waa aniga oo soo waco yiri ma ka dhigaa oo yiri xisbiga dimuqraadiga ka mamnuuc aniga weey waxaan ku yiri ku sheegaya maanta waxaan ku yiri ba ku sheegaya dambi aniga igalaad gelin shan sano soo fadhi waa ka qoraalkaaga muqdisho uu ka ay barma ayaa soo bax muqdisho habar gidir baata muqdisho 91 baa gash ana ku dhashay muqdisho uu ka leedahay 91 baa gash Minnesota anigu 91 baan galay markaan muqdisho ka soo baxay baan Minnesota galay aniga muqdisho waa taa Minnesota way uu ka isa saar garta guuga ma ka qaadana ilaa ku dulmin baan ku sheegaya maanta kursiga ku dhaafiyay laakiin ilaa ku dulmin baan ku sheegaya maanta muqdisho uu ka farmaajo soo markaa lahayd farmaajo ku dhashay muqdisho adoo guracyaal ku dhashay markaa lahayd muqdisho anaga soo bax 91 muqdisho gash ana 91 baan Minnesota galay inaan Minnesota uu ka dhaho maxaa ii diiday saasay weydiiyay isha waxa ii diiday labada uu ka isku tuur inta wax ka dambeeyana dantaan aan ku tilmaamo laba xisbi meesha abraa waxa ugu sheekeynaysaa waa la tabi karaa si baraafada uu tabaya laba xisbi oo dalku leeyahay dimuqraadiga republican way dimuqraadiga ana ka cayrsaday ama masaajid joogo ama community aan hayste ana idin ka cayrsaday wuxuu yiri anaga walaajka wadada u galnay ku rinay rasaas waa weyn haddana ku wadnaa walaacay ana ka cayrsaday dimuqraadigi wallahi sudarma republican hadaa gashin waan ogahay Minnesota is wax ka qaadeen nafsan tahay oo republican soo shaqeyn Minnesota waa xisbiga cunsurige hatta hadaa gashin republican waa kaaga dabeemaanaya waan kala baxaya sababtoo ah gaaladu ninkay aaminsan tahay anigu waa kala baxaya ilaa goorba ku afilaya ilaa aad kala af ku soo qaadid boostiyada qori jiday aha unuka wallahi Minnesota ka socon mayso unuka Minnesota inuu wax ka noqdo waxa kaaga dhow
wiilka raxaweyn baa kaaga dhow yaa raxaweyn isoo sharax maxaa idinku dhacay idima haye ilma tabarti isharax isoo sharax anaa idin garab taagan ha ka warwarina waxaa codka idinkoo jiifaa helaysaa wiilka raxaweyn baa inuu wax ka noqdo iyo mid urur Soomaaliya markay noqoto wiilka raxaweyn baa uga dhow 100% qof urur Soomaaliya muqdisho xaraan bay ka meesha la yiraahdo muxuu ahaa Minnesota xaraanti ilaahay xarimay bay ka ilaahay miduu xarimay oo kale ka wallahi bisoon ka darimay kana dhimay halkaan aan u fadhiyo maalintaan inta ma aqaan maalintaan inta oo daalood sasabataan ama daaloodka ka u dhuwataan ma garan laakiin inta indhahaygu saa yihiin falaarta yihiin wallahi oo billahi oo tallah shay saa u dhaartan maanta u dhaaranaya haan oo marayaa inay ka dhabiin Minnesota Soomaalida walaaltinimada waxooyashada calool furnaanta halaga arko soddon sano hadda waa soddon baa walaaltinimada iyo nabadda iyo wanaagga u kala tirinay maanta inaan xumaanta u kala tiriyo idinka ay u kalifay daaroodku waa dulqaad badan yahay laakiin maalintu soo jeensado waxba bedelaa xumaanta waxay naga gaadhaa haddaan u bareerno masaajidka dhexdiisa inaan ku qabanno xataa dhexdiisa inaan ku qabanno xumaanta ku dhex qabanno baa wallahi billahi tallahi naga suurtowda marka rumaa idin sheegayaa dib iskaga dega cabdi naasir walaalkay laba wiil oo Soomaaliya nahay Suudaan ka nimid baan nahay labadeedu waxaan ka nimid mudug iyo galgaduud baan ka nimid xumaan kale kuma qabo midii aan reerkayga u geystay waxaan kuma qabo ayadiina maanta ku tusay qofka aan ahaan ku tusay maanta ku tusay marka hadda ka bacdi aasha soco unaka muqdisho ka shaqeynaysa no Minnesota ma muqdisho ma intaasaan ku leeyahay Cabdiqaadir waxaan leeyahay laga qabiil lagu faani karo ama lagu kaftami karo ama habar wacasho u baahnayn ama wax xoojiya u baahnayn aad yeelatid suqayke maanta iskay badhaa maanta waxay badhay laangaab laarana tahay waaga aad isku filaatid aan sunnimaan adoo hawiye ka tagay oo shuruur sabaare maraya ina haddana cid iga soo raacay mareexaan iyo ogaadeen soo arna mareexaan iyo ogaadeen iyo kablalax iyo hartiga iyo waxa ka shaqeynaysid hal odayaal dhalay urur Soomaaliya maaha community maaha xisbi wacaladu galaan oo isugu yimaadeen maaha xisbi ama waxa diyaar ku rooyahay shahaado wixii ab waaye ee isugu yimaadeen ama wacala maaha hal oday baa wada dhalay hal biyo weeye hal afweena ku hadlaan afkoodi waa kan gacmihii wax lagu qabanayay Minnesota yaala waa ka baxay qolkaas hawiye labada meediga jiita horaan idin kugu sheegay qolkayga xiga Abdul Istaag waxa weey meeshii muqdisho ahayd madaxweynaha dhan iyo xukuumaddiisa laga sugayay wax ka bedelka madaxweynihii aan ku tilmaami jiray habartii tobanka gus qaybisay maanta meediyaha waxay cayrsanayaan dhammaantood wiil yaa cali oo shalay ay caay jireen diyaar ku dhaliili jireen bay maanta cayrsanayaan akoonkiisa Facebook bay report hala report oo gmailkii dawladda governmentiga gmailkiisi baa laga reportaya oo laga dacweynaya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun muxuu sheegay wiilka lagu haysta mataqaana wax kale ma hadli wax sheegay waxa uu sheegay laba mahad waa mahad kawaanle iyo mahad salaad mahad kawaanle waxaan leeyahay mahad karatay inay wada shaqeeyaan hubkii al-shabaab soo bandhigayeen hub loo gudbiyay nimanka loo dusiyay inuu yahay intaas sheegay argagixisadu taageera saalaysinay wixii aan ayaga u sacabin waa argagixiso su'aal baad weydiinaya kale habartii 5 sano farmaajo qaylineysay ekraan tahliil cadaalad habartii dhiishiday qaali heblaaylo qaali gudaha loo jiray ma haysan ninka la yaab Fahad Yaasin loo sheegay gabadheedii in ma salaad iyo ay cuneen ma haysan laba hayo gabadheedii ayaa la qaday ma salaad iyo cuneen hum bay ahayd inta loo sheegay Fahad Yaasin sababtoo ah ma hadnaanta kursiga Fahad Yaasin buu fadhiya gabadha faylkeedina meeshuu yaala Soomaaliya habartii umada loo soo maray habartii waxaan ku qabilay oo waxa ila ekaatay markaan saan qiimeeyay
bahashan yaa mukulaasha maarata mukulaasha ama bisada